asxaabta ku xiran Somaliland soo dhawaada sida u jeedin miiska maanta waxay noo saaran fast grow anabolic iyo hyperbolic mass waxa sharaxi doona mid walba qofka lagu talagalay iyo sida loo kala isticmaalo waxa ku horumarayna hyperbolic mass waxa lagu talagalay qof walba oo gym-ka ku cusub maalintiis koobaad xataa uu qaadi karo oo isticmaali kara waxaana ku jirto 53 qaando qofka gym ku cusub waxay ka caawinayaan inuu muruqi oo sameeyay oo u koro oo muruqa ku kobciso muruqan ay borotiin ku gelisay nafaqo qofkaasna oo gym ku cusub waxba kama dhibayso waana wuxuu isticmaali karaa nafaqo ahaan oo wuxuu isticmaali karaa booska cuntooyinka hadii ka qaldamaan oo kale booska cuntada ka qaldanta uu ku buuxinaa isticmaali karaan dadka gym ku cusub waxa kale ku xigo fast grow anabolic waxa loogu talagalay qof gym-ka muddo hore u waday laakiin muruqiisa uu koreynin qofka laga yaabo muddo 3 bil 4 bil inuu gym ku jiray laakiin muruqiisa wax isbedel ma sameeynayo marka fast grow anabolic waxa ka caawinaya muruqaaga inuu ku biyo gashto oo muruqaaga uu ku kobco protein iyo nafaqo oo ku yeesho sida ogna qofka markuu gym-ka muddo wado wuxuu rabaa inuu isbedel sameeyo kan markuu ka caawinaa inuu muruqaaga isbedel oo sameeyo oo muruqa isbedel fiican ka dirintid waxaana ku jirto 8 qaando waan 4 kilogram ka gooban yahay sida u jeedin waxa iskala hal kimbiniya soo wada saaro US in la dhahayo halkaas kimbiniya ka wada dhaxaysa waa protein quality waxa keenaysa xarunteena Somaliland oo ku taala isgoyska Digfair gaar ahaan Nashaad Mall daba qaybta labaad ku soo dhawaada marka saabta